gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajoon ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho isagoo muddo ku dhow 2 toddobaad ugu maqnaa xaalad caafimaad dalka Turkiga halkaas oo xaaladiisa caafimaad lagu soo dabiibiyay iyadoo 12 bishii November qarax ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isku 21 October ee magaalada Muqdisho qaraxaasi oo miina dhulka lagu aasay ahayd lala beegsaday gaari uu saarnaa gudoomiyuhu halkaas oo ay ku dhinteen 2 askari oo kamid ahaa ilaalada gudoomiyaha halka uu gudoomiyahana dhaawac ka soo gaaray gudoomiyaha ayaa markii uu ku soo noqday magaalada Muqdisho maalintii Arbacada ayaa waxa uu durba ka qayb galay shirka isbuuclaha ee loo qabto ay yeeshaan gudida degmada Howlwadaag iyo degmada Hodan halkaasi markuu shirkaasi soo gabagabay waxa uu isla habeennimadii gudoomiyuhu u soo baxay inuu soo kormeero qayb ka mid ah degmada Howlwadaag isagoo maraya jidka Hawiye ee ku yaala magaalada Hawiye ee ku yaala magaalada Muqdisho ee u dhow isgoyska Howlwadaag ayaa waxa ay askartu xabado ku fureen askar ka tirsan ciidamada booliska ee dawladda ayaa waxay ku fureen xabado iyadoo xabadahaasi ay gaarigiisa ku fureen ay sababtay inuu gudoomiyuhu u geeriyoodo daawadayaal dhammaan warbaahinta kala duwan ayaa waxay sheegeen in ay ilaalada gudoomiyaha iyo askartu xabad isku fureen balse daawadayaal taasi waxba kama jiraan ayay noqotay oo kaliya taa wax xabada ku furay daawadayaal askarta dawladda daawadayaal gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin ayaa waxa uu maray wadadii uu maray injineeriyihiisa oo hore lagu dilay magaalada Muqdisho daawadayaal Cabdixakiin Dhagajoon ayaa ahaa qof aad u firfircoon isagoo bartiisa Facebook soo dhigay inta aanu dhiman 3 saacadood ka hor ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa Facebook dib ayaan ugu soo laabtay dalkayga hooyo durba waxaan bilaabay shaqadii aan bulshada u hayay isagoo sheegay inuu ka qayb galay shirka labada degmo ee toddobaadlaha ah inta kadib waxa uu ku daray waxaan ogahay argagixisada inay u guntan yihiin sidee u kala kaxayn lahaayeen bulshada Soomaaliyeed balse taasi ma suurta galayso Allah u naxariisto ayaa leenahay gudoomiyaha waxa kaliya uu maanta inooga baahan yahay waxay tahay kaliya taynu ducayno Allah u naxariisto daawadayaal isaga inta Soomaaliyeed ee geeriyootaba daawadayaal dadku u soo duceeyo barta hoose committee